kii ciidanka watawaadi miyaa lagu qaadaa sharciga argixisada ninkan baabuurka soo rartay meesha ku soo rartay ayay in lagu qabto kadib sharciga lagu qaadaa loo waa la yiraahdo laakiin ninba asaga naftiisa dili oo dhintay sharciga markaa kadib yaa ay quraan miyaa mamluuyaa siiminaya gobolka banaadir amniga lagu wareejiyay maanta laga bilaabo taliyaha ciidanka nabad sugidda wuxuu sheegay asagoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliska inuu amniga gobolka banaadir ku wareejiyay annaga wasaaradda amnigan kala xisaabtamaynaa baarlamaan ahaan amniga dalka wasaaradda iyaday u taalla hadday wareejinaysa iyo haddii kale waxay sheegeen inuu ahaa qarax saarnaa in lagu qiyaasay qarax aad u fara badan oo ilaa 200 kilogram waa fahmi kartaa qaraxii hotel jazeera damage-ka uu gaarsiiyay waa 150 kilogram kan ayaa ka badnaa nasiib wanaag laakiin dhimashada iyo dhibka uu geystay kan baa yaraa markaa dhinaca kale ka fiiriso waxa weeye maadaama magacan argixisada iyo islaamka ay dadka waxa weeye masiixiga ah ay isku soo dhigeen baarlamaan oo dadka xubnaha ka ay muslim wada yihiin in sharci la yahdo la dagaalanka argixisada inay ansixiyaan sideedaba u adag ciidamada gaashaan waa mahadsan yihiin ilmo godana guushoodu waa gumaadka shacabka gaashaan guusheeduna waa gurmadka shacabka dadka laga badbaadiyay halkan hotelka gudihiisa dadka ku dhintay ee cadawgu inay dilaan ay awoodeen markay gudaha soo galeen 4 qof meeshay ka dileen oo 59 qof laga badbaadiyay waxaad dareemi kartaan xajmiga ciidamadu meeshaan ka dhacay ummadda Soomaaliyeed dhamaantood aan uga tacsiyeeyo marka xigto waxaan rabaa sidaas si lamid ah inaan yacni ku bogaadiyo ugana mahadceliyo hay'adaha amniga sida waayo-aragnimada leh iyo sida dadaalkay u galeen inay arrintan soo afjaraan waa fahmi kartaan waqtiga ay soo qaadatay oo habeen iyadoo ah in yacni meeshii dad shacab oo ku jirana in yacni dadkii ay ku dhintaan iyadoo laga ilaalinayo in yacni waqtigan uu soo gaaray ilaa ay dhowr iyo 10 inay dhimashada tahay ayaa yacni hordhac noo soo gaaray waxaan jeclahay inay intaas ku ekaato waxaa sidaas oo kale taan tacsi u dirayaa golaha shacabka baarlamaanka oo ay kaga geeriyootay 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka ama golaha shacabka ayagana tacsidaas baan u dirayaa mina qarxayso mana laha ogeysiin iyo maray dhacaysee meydka la sii wado maalin waliba joogtaa waa masiibo qaran oo maankeenu diido meel ay u jeediyo meel ay ka jeedaba marna aan la garanayn horta yaa mas-uulka mawjimada dhacaayo midi ku taagayo murana dhammaan baa lagu wada mashquulo masharihii dalkeenna mugdi galay haddeero iftiin nooma muuqday meel aan u soconne horta yaa mas-uulka mas-uuliyadda in la qaado wey oo ay ka soo jawaabaan howlo badan buu u baahan yahay laakiin inuu shakhsi mas'uul meel la soo joogtado oo yiraahdo sharcigaas daraadiisa amniga la sugi lahaa amniga ninka lagu qaadi lahaa waaba dhintay waad arkaysaa ninkii baabuurka watay ee argay xisada lagu qaadi lahaa waa dhintay waa intiis dhimin ka hor maxaa loo qaban way waxaa la yaabaa maalin kasta wiigi 3 jeer ama 4 jeer baan idaacadda waxaan ka fiirsadaa dad la tooganayo
oo la leeyahay waa shabaab iyo waa wax kale waxay ahaayeen anugu ma aqaan qof ajnabiya oo dalka ku soo xadgudbay ama shabaab ha ku yimaado ama ururo kale ha ku yimaadee oo weligay la tooganaya ma aanaan fiirsan hebel oo Soomaaliya weeye laba boqol sama war wixira wada hado seeluga ogan way mataqaana meesha laga soo raraayo iyo guriga laga soo sameeyay intaba kow maaha laba maaha saddex maaha afar maaha sharciga maanta la doonayo muxuu yahay ayadoo maalin kasta la tooganaya dadkii haddaan sharci awsan jirin maxaa dadkaan lagu toog maxaa dadkaan ku leeanaya maxaa loo laynaya sharciga loo maray xaggee yahay haddiiba saaka oo wasiirkii amnigu iyo taliyayaashiisii iyo wadaadda islaameed oo la waalay Uma